إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي وأخواتي في الإسلام والعقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta ay tahay taariikhda bisha hijriyada 19 rajab 1431 kuna aadan kowda bisha toddobaad 2010 waxa aanu geli doonaa haddii alla idmo muxaadaradeennii labaad ee maalinta koowaad ee mu'tamarkii 18aad. cinwaanka muxaadarada maanta waxa weeye adduunyo jacayl. cinwaankaas oo ah adduunyo jacayl waxaa noo muxaadarayn doono oo noo fasiri doono waxyaabaha ay sibato oo dhan sheekheena doctor cali maxamed saalax oo aad garanaysaan. saas daraaddeed waxaan kusoo dhoweynayaa doctor maxamed saalax iyo muxaadarada adduunyo jacayl ahayd. فليتفضل مشكورا ومأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. waxaa baraarujin mudan in mowduuca la magac baxay adduunyo jacayl uu yahay mowduuc aanan u suuban inuu ka hadlo qof meeshan jooga. mowduuc qofka hadlaya siiba maanta jooga waa mowduucaan u suuban, ugumana ay sii jirto dadkeena meesha jooga oo waxaa meeshana keenada ay tahaba adduunyo raadis. mowduucan waxaa iska lahaa dadkii zuhaada ahaa ee zaahidiinta ahaa, dadkii salafka ahaa oo saalixiinta ahaa, dadkii siday ula tacaamuli lahaayeen. laakiin nin isagaba gees kaga jira raadinteeda inuu mowduuca uu ka hadlo runtii munaasab maaha. mar haddii arrinku uu sidaa u yahay, haddana qofka waxaa rajo gelinaya kalaamkii ama hadalkii alimaamu alqurtubi markuu ka hadlay alamr bilmacruuf wannahyi can ilmunkar buu wuxuu yidhi: asxaabu alku'uusi calayhim أن يأمر بعضهم بعضا المعروف في حالة تعاطيهم الكؤوس. iyagoo khamrada wada cabaya oo koobka isisiinaya ayaa waxaa saaran inay wanaagga isfaraan, xumidana iska reebaan. ilan mas'alaة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر kaaga dhici mayso
hebel baa khalad baan ku jiray ana khaldamay inta kaaga dhici mayso al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wa mas'ala diini oo qofka markaa saaran arrinka inagu markaa ka amba qaadayna waxa keenaya weeradana gelinaya in mawduuc muhiim marka laga yiraahdo qofka ugu horeyn ka faa'iideysanayna oo qofka sheegay biin ilaahi subhanahu wa ta'ala Allah waxa uu ku tilmaama aayaadka aan muhaadarada aan ku furfuranay laba aayadood ba ahayd aayadna waxa ay soo gunaanaday adduunyo waxa ay tahay mar hadii Allah subhanahu wa ta'ala baaq guud ahaaneed uu sameeyay uu yiri ogaada adduunyada dhan marka la soo duuduubo iska ciyaar waa faantan waa badi isugu faantan iimin wadaba ninka kale isagoo raba inuu tuso waxa uu dheer yahay markaas Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu bixiyay tusaale aad iyo aad u qurux badan oo in fara badan quraanka la soo celceliyay tusaalaha marka laga tago macaanida suugaaneed uu xambaarsan yahay marka aan la milicsan sida quruxda badan oo rabbigay uu tilmaamay marka laga tago haddana Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu noogu mithaaliyay wax aan fahmi karna maankeena aad iyo aad ugu dhow oo la yiri ghayth a'jaba al-kuffara nabatu roob intuu soo da'ay ghayth baa lagu magacaabay maxay la muddo fara badan baa la sugayay waa gargaar roob baa soo da'ay markaas qofkii beerta lahaa oo aad iyo aad ugu farxay kadib Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay kadibba beertii waa tan iyada dhanba ay bedelantay ay cawlantay burbur marka uu ku yimid kaan lam taghni bil amsi iyada ayaan jirin oo kale haddana aayad kale Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay sideedaba bini aadamka min awwalihim ila aakhirihim ayaa waxa loo qurxiyay hubbu shahawaat wax alla waxay nafsadu ay jamato oo macnaana oo isugu jira dumarkii caruurtii maalkii dahabkii qalinkii iyo wax alla wixii nafsadu marka ay jeclaan lahayd gunaanadkii wa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay dalika mataa'u al-hayati ad-dunya inta oo la soo xuso dhan isku soo duuduube waa adduunye iyo raaxadeeda oo shay marka aad iyo aad u dhow wallahu indahu husnul ma'ab Allah subhanahu wa ta'ala agtiisana waxa ahaaday marji'a wanaagsan ayadahaas marka ay fasirayaan dadka yaqaana tafsiirkooda run ahaantii waxay kala dhaxbaxeen duruus aad iyo aad u qiimo badan darsiga koowaad meesha lagala baxaya wuxuu yahay adduunya waxa loogu magacaabay dhawaanshaha ay leedahay oo muddadeeda ma mid markiiba dhamaanaya yani muddo markiiba marka degdeg ku dhamaanaysa waxa lagu magacaabaa adduunya li haqaratiha inay aad iyo aad xaqiir u tahay oo qiimo aan lahayn labada macna marka la siiyay kadib haddana Allah subhanahu wa ta'ala ayad kale wuxuu ku leeyahay inama al-hayatu ad-dunya kama'in anzalnahu min as-sama' fakhtalata bihi nabatu al-ard mimma ya'kulu an-nas wal-an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahliha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil-ams ayadan iyadana waxay tilmaantay sida Allah subhanahu wa ta'ala u sifeeyay roob soo da'ay kadib markii roobkii gargaarkii looga baahnaa dhulka uu gutay oo dhirtii ay soo baxdo saa isugu dhafantay waxa la wixii bini aadamka ay cuni lahaayeen xoolaha ay cuni lahaayeen la helay ba Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay zukhrufkeeda iyo birbirkeeda iyo dhalaalkeeda markiiba waa la dhufsaday waa la waayay Allah gunaanadka ayada wuxuu leeyahay markii amarkeena uu yimid laylan aw naharan oo laga dhigay faj'alnaa hasidan mid iyada la shafay oo la baabi'iyay oo dhulka la dhigay bugunaanadka wuxuu leeyahay kaan lam taghna bil ams waxa moodaa inayaan jirin ayadaha saddexda oo iyagu marka udub dhaxaadka u ama bartilmaameedka u mawduuca nuxurkiisana gunaanaday waa waxa aayaadka ama xadiisu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam iyo aathaar salaf hadhihi al-umma ay aadiyad marka u bidaamiyeen rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri xadiis buu wuxuu ku yiri Abu Sa'id al-Khudri uu wariyay Muslimna uu wariyay Abu Sa'id al-Khudri laga soo wariyay Muslim uu wariyay wuxuu leeyahay ad-dunya inna ad-dunya hulwatun khadra ad-dunyada darkaysan wa wax macaan oo doog wa inna Allaha mustakhlifukum fiha ilahina idinku badal idinkaga dhigo idinka ladinku amaanaystay fayanzuru kayfa ta'malun wa fi riwayatin fayanzuru kayfa ta'malun ilahi waxa uu fiirinayaa
sida aad u camal fashaan markaasuu rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi fattaqu dunya war adduunyada iska ilaaliya haddana wuxuu yidhi wattaqu nnisaa dumarka fidnadoodana iska ilaaliya markaasuu rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi fidnatii ugu horraysay ee reer bani israa'iil ku timid waxay kaanad fi nisaa dumarka xaggooda laga soo galay xadiidkan waa xadiid alimaam muslim uu warinayo isagoo dhan wuxuu soo duuduubay xadiidka min awalihi ilaa aakhirihi lafdiga wuxuu isugu soo biyashubmay fattaqu dunyaa war adduunyada iska ilaaliya maxaa yeelay waxay u badan tahay inay meel kale idinkala dhacdo rasuulullahi moxamed sala allahu calayh wasalam haddana xadiid kale wuxuu ku yidhi low kaanat اddunyaa tacdilu cinda allahi janaaxa bacuudatin maa saqaa kaafira minha shurbata maa xadiidkan waa alimaamu tirmidi xasan buu ku tilmaamay sahl ibni sacdin asaacidiini waa laga wariyey xadiidka wuxuu leeyahay haddii adduunyada ilaahay agtii ay ka gaarsiisnaan lahayd wax u dhigma oo kale garab kaneeca oo kale kaafir koob biyaa kama ka badan buu leeyahay oo ilaahay subxana wa tacala kama siiyeen bimacnaa qof isaga ku gaaloobay diiday rabbaaniyata rabbi alcaalamiin diiday uluuhiyata rabbi alcaalamiin diiday inuu ilaahay addoon u noqdo qofkaa koob biyaa marka lagama siiyeen mar haddii qof kasta laga waraabiyey adduunyadii iyo biyaheeda mar haddii qof kasta laga quudiyo adduunyadii arsaaqdeeda arrinkaa wuxuu muujinayaa marka in allah subxaana wa tacala agtii waxba aanay ka ahayn maxaa yeele waxaad qashinka geysaa oo tuurtaa wax agtigaada qiimo aanan markaa ku lahayn amaa shaygu hadduu qiimo leeyahay faa'iide uu leeyahay meel baad dhiganaysaa waa ilaashanaysaa rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiidkii muslim wuxuu ku yidhi abu hurayre laga wariyey addunyaa sijnu lmu'mini wa jannatu lkaafir adduunyadaad arkaysaan qofka muuminkaana xabsi bay u tahay kan gaalka ahna jannay u tahay buu rasuulka sala allahu calayh wasalam waa ninka muuminkaa ninka meel kasta laga kawinayo waa ninka muuminkaa ninka meel kastaba ciriiri marka ka dareemayo waa ninka muuminkaa ninka marka aana tallaabtu raba aanu qaadi karin laakiin ka kale waa jannatu lkaafiri marka la yidhi jannana ay tahay meel aad iyo aad u baaxad weyn qofka nicmaduu doonana marka uu ka helayo ayaa waxaa la yidhi xaalkeedu marka waa sidaa xadiid kale wuxuu leeyahay mustawrid ibn shadaad laga wariyey rasuulka sala allahu calayh wasalam markuu ka hadlayay isbarbar dhigay wuxuu yidhi ma addunyaa fi alaakhirati ilaa mithlu maa yajcalu axadukum usbacahu fi lyami falyandur bima yarjic aw bima tarjic adduunyada marka aakhira loo barbar dhigo wuxuu la mid yahay adoo fartaada daray fi lyam baddaad farta gelisay bal fadda markaad dib ugula soo laabatid ula soo laabatid bal arag biyahay la soo laabanayso intuba waa intaa buu rasuulka sala allahu calayh wasalam marka yidhi qodobka labaad markaan ararta aan ka gudbo waxaan u gudbayaa saxaabatu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam annabiyu sala allahu calayh wasalam awalan iyo saxaabatu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam siday u arkeen ee dadkii taabiciinta ahaa nebiga sala allahu calayh wasalam mar isagoo gurigiisa hurda xadiid aad iyo aad macruuf u ah dul jiifa wax lagu magacaabo xasiir gogol yar oo darin ah saamaysay oo raadaysay jirkiisa ayaa waxaa soo galay cumar bn khadaab radi allahu canhu cumar bn khadaab markuu arkay rasuulka sala allahu calayh wasalam sida ay darintaa iyo gogasha uu dul jiifay ee u saamaysay jirkiisa ayuu ooyin meesha marka la dhaqaaqay rasuulullah sala allahu calayh wasalam su-aal buu wuxuu weydiiyey wuxuu yidhi maa yubkiika yaa cumaru maxaa kaa ooyinaya cumarow maxaa keenay markaasuu yidhi yaa rasuula allah kisra iyo qaysarna labadaa boqor nicmadaa ogeyd bay ku sugayeen rasuul allow sidaabaa ilaahay ugu nicmeeyey waa laba boqor laba muluug weeye ilaahay subxaana wa tacaala u nicmeeye adiga oo rasuul alla ahna ma waxaad ku sugan tahay xaaladda markaa aad ku sugan tahay yacni xaaladdan aan arkayo in gogashaada maanta ay noqoto xasiirkaa darinta ah oo jirkaaga raadayey oo saameeyey adoo rasuulullahi sala allahu calayh wasalam mutaystay in la siiye mudcatii ugu sarraysay mutaystay in la siiye adduunyada meesha ugu sarraysay miyaad xaaladdaa ku nooshahay rasuul allah rasuulka sala allahu calayh wasalam kelimad mashhuura ayuu yidhi ay tanaaqalatha alsinatu الزهاد والصالحون ألسنة الزهاد والصالحين هذا الكلام أها أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة عمر موان الرالي كن قنين إني الدنيا دي أي قاتان يجا يوهاتو إنك آخرة مركان يلنا ماشى وماشى إليه ابن القيم الجوزية هذا العجيب أي ماشير وعيري
rasuulka adduunyadii loo bandhigay markay saa ugu soo banbaxday bay intuu labadiisa gacmood xabadka ka saaray buu gadaal u tuura buu yidhi markaasay dhabar u dhacday buu yidhi kadib adduunyadii iyadoo socota haddana saxaabadii loo bandhigay buu yidhi labay u kala qaybsameen buu yidhi qolana waxa ay raaceen waddada rasuulka sala allahu calayh wasalam uu raacay oo sida uu rasuulka sala allahu calayh wasalam uu u tuuray u eryey bay u eryeen qolada kale soo maaha waxay yidhaahdeen adduunyay maxaad haysaa su-aal bay weydiiyeen jawaab bay bixiso adduunyada waxay tihi waxaan hayaa xalaalna waan hayaa shubhana waan hayaa makruuhna waan hayaa xaaraanna waan hayaa intaba laga helayaa markaase waxay yidhahdeen dadkii kale haatiis xalaalak inta xalaasha un keliya noo dhiib waxa ka soo haray soo maaha adiga la shirtag meel kale la aad kadib adduunyadii waa la bandhigay buu yidhi waxaa loo bandhigay dadkii markaa ka dambeeyey rasuulka sala allahu calayh wasalamna wuu diiday qayb saxaabadii ka midana waa ay diideen inta soo hartana inta xalaashay marka la soo hareen adduunyada waxay ku jawaabtay ma hayo wax xalaal ah waxay yidhahdeen waayahay bal noo baarbaar wixii makruuh ah iyo wixii shubha markaa ku jira markaas waxay tidhi amaa arrinka aad ka hadlaysaan makruuha iyo shubha aad ka hadlaysaan dad kala qaatay waa idinkaga hormaraba oo maxaa harsan xaaraan baa harsan xaaraanta noo dhiib xaaraamta kuwo kale gacanta u gashay xaaraamtii waa la qaato qolyo kalea gacanta ku haya waa kuwa maanta isherdinaya iyada darteed isku legdaya isku dheggan oo wuxuu leeyahay marka ibnuqayim aljawsiya markuu macnahan uu tilmaamay wuxuu leeyahay falaa yamuddu faajirun yadahu ilaa shayin min alxaraami ilaa wajada afjara minhu waaqwa qad sabaqahu ilayh nin kastoo mujrimo is yidhahda adduunyadii gacanta ku soo dhusta waxa lagu dagaalamayna waa xaaraam waxa uu helayaa nin kale oo ka mujrimsan oo ka faajirsan oo kaga hormaray hadalka ibnuqayim aljawsiya wuxuu tilmaamayaa waxa harsan dadkeenan maanta jooga waxa u harsan waa intii xaaraanta ahayd intaa way inta lagu looltamayo intaa way intaan isku herdinayno intaa way inta lagu tartamayo loo dhaqtamayo intaa way inta aan isku haysanno hadalkii uu sii wada wuxuu yidhi iyadoo arrinku uu sidaa yahay waxa la isku haystana xaaraam ay tahay hadduu kursiga noqon lahaa hadduu shilin u noqon lahaa hadduu jah u noqon lahaa wax alla wuxuu doonaba ha noqdo wuxuu yidhi wakulluhum duyuufun wamaa biaydiihim caariya iyagoo dhanna waa marti waxay gacanta ku hayaana wax caariye ah yacni waa shay la soo caariyaystay oo la soo ammaado hebel laga soo qaatay markaasuu wuxuu tilmaamay hadalkii ibnu mascuud uu yidhi radia allahu canhu ardaah maa asbaxa axadun fi اddunyaa ilaa dayf wamaaluhu caariya faاldayfu murtaxilun waalcaariyatu mu'addaah qof kasta adduunyada jooga waxa gacanta uu ku hayo isagoo dhan horta waa dayf waa marti wuxuu gacanta ku hayana waa caariye markaa loo dhiibta buu yidhi haddii dayf uu yahana qofka martida waxaa la og yahay markii maalmihii uu danta lahaa uu dhammaysto oo martisoorkiisa uu soo gabagaboobo horta inuu carraabayo dhaqaaqayo caariyana waxaad soo amaahsatay oo caariye ahna inaad celinaysid baa la og yahay saxaabatu rasuuli llahi sala allahu calayh wasalam amiiru lmu'miniin cumar bnu khadaab waxaa la soo xigtaa sida uu tilmaamaya ibn kaiir fii tafsiirihi in fara badan oo adcimadan innaga aanu isi siinno waxaan doona aan cunno iyo mashaarib fara badan oo la cabo sharaab kala duwan iyo cunto kala duwan innaga caadi noo ah wuu iska ilaalin jiray marka la weydiinaya wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa yowma alqiyaama marka la gaaro in la yidhaahdo adhabtum طayibaatikum fii xayaatikum addunya wastamtactum biha wax alla wixii macmacaana laydinkugu talagalay adduunyadaad ku soo dhammaysateen wastamtactum biha waad ku soo raaxaysateen aakhara waxna idiima harsana qolyaha inaan soo galan ka baqayaa buu dhihi jiray wax fara badan oo xalaala oo ilaahi subxaanaه wa tacaala uu banneeyey lana yidhi kuluu washrabuu la yidhi buu iska ilaalin jiray isagoo diidaya yowma alqiyaama marka la gaaray in la yidhaahdo war intii aad lahayd oo xalaal lagugu talagaloo tayibaada adduunyadaad ku soo raabsato waxba kuuma harsana waa macnaha markaa daqiiqa uu tilmaamayo hada alkhaliifa raxmat ullahi calayh waradia allahu canhu ardaah qays cumar bni qays sida uu ka soo xigtay mucaad bin jabal markii malakumowdka amaba uu xaaladdii ugu dambaysay markuu soo gaaray xaraarigu u marayay ayuu wuxuu yidhi mowdkii buu la hadlay buu wuxuu yidhi marxaban bilmowti zaa'irin mughib soo dhowow buu yidhi haddaad malakumowd aad tahay xabiibin ja'a calaa faaqa waxaad tahay qof la jecel yahay oo yimid
markaasuu kelmad uu yidhi adduunyadii uu ka tegayo wuxuu tilmaamaya macnaheedu wuxuu leeyahay adduunyadu ka tegay wuxuu leeyahay allaahumma kuntu akhaafuk fa ana alyawma arjuuk ilaah waan ka baqi jiray marka hore baqdin baa igu beerayd oo aad iyo aad baan u baqi jiray acmaasha inaan la imaado waxa igu kalifi jiray baqdin adiga aan kaa baqayo laakiin maanta rajadii ayaa ii taagan waan ku rajaynayaa rabbi allah waxaan rajaynayaa dembigayga inaad dhaaftid oo meeshii lagu talagalay aad igeysid oo khayra markaasuu wuxuu leeyahay allaahumma innaka kunta taclam أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر إلهي واد أكتها الدنيا دي أنا إنا نرجع لهم بيري إنا وبيال أن دوريرسيو إنا بير أبورو لكن نحن نرجع الله صون درتي إنا صلاة الليل أسو استاغو in meesha culummada ay fadhiyaan aan jilbaha ku ciriiri inta unba adduunyada u joogay arrinkaa wuxuu khulaasaynayaa hada taabici wuxuu tilmaamayaa amaba hadalka kan ee marka laga soo xiganaya taabicigan uu ka soo xigay Mucaad bin Jabal wuxuu tilmaamayaa saxaabi aljaliil adduunyada agtooda waxay ka ahayd saddex arrimood haddaanu aanay jiri lahayn adduunyada ma doorteen waxaan u doortay buu leeyahay dhama ilhawaajir inaan soomo haddana waxaan u doortay buu leeyahay mukaabadati saacaad saacadaha dambe inaan ilaahay hor istaago salaatuleyl aan tukado waxaana u doortay buu leeyahay xaaladda saddexaad musaaxamati alculamaa'i birrakabi cinda xilaqi adikr inaan culammada aan marka lowyaha saa u garab dhigo aan saa ugu ciriiriyo majaalisa dikri ila isugu yimaado intaa baan u jeeray laakiin ujeeddadeeda ma ahayn inaan beero badsado ujeeddadeeda ma ahayn inaan webiyo markaa saa u duraysiiyo intaa un baan u joogay bay dhihi jireen hadalka hadal la mida waxaa laga soo xigta raggii markaa ka dambeeyey walidaalika maalik ibnu diinaar baan u soo galnay buu yidhi isagoo xanuunsan samadu korta inta indhaha u taagay uu saa indhaha samada u fiiriyey buu wuxuu tilmaamay macnihii uu tilmaamay mucaad bin jabal radia allahu canhu waa dersi laga dhaxlay aljiil alawal waa mawruuth khayrkiisa leh uu soo gudbiyey aljiil alawal loona soo gudbiyey jiilkii markaa ka dambeeyey abu muslim alkhawlaani ayaa maalin maalmaha ka mida masjidka soo galay kadibna wuxuu arkay koox meesha fadhida oo sheekaysanaysa wuxuu is yidhi dadka kan waxaa laga yaabay inay ilaahay subxaana wa tacaala xusayaan meeshii buu fadhiisto wuu la fadhiisto geeskiisu marka ka fadhiistay kadib wuxuu maqlay nin walbaba isagoo ka sheekaynaya businesskiisii maanta waxaa ii soo dhacay intaas baa raray intaasoo ratiibaan aan markaa isdabageliyey intaasoo hawla ayaan qabtay intaasoo shilina ayaan faa'iiday danaaniirtaa baan helay markuu maqlay wuxuu yidhi subxaana allah hal tadruuna yaa haaulaa'i maa mahalii wa mahalukum dadkiinan meesha fadhiya ma garanaysaan buu yidhi idinka mahalkiina wuxuu aniga mahalkii yacni waxaan isku nahay ma ogtihiin wuxuu yidhi waxaan la mid ahay nin intuu roob mahiigaana markaa ku yimid isyidhi bal meel uun daydayo oo roobka kan aa kaga gaashaamatid kadibna markii meeshii aan imid ayaan waxaan u imid buu yidhi guri aanan saanqaaf lahayn oo wax bimacnaa iga celinaya roobkii marka aanu jirin waxaan filayay buu yidhi inaad dikrullaahi aad dul fadhidaan waxaan filayay xuska ilaahay inaad dul taagan tihiin waxaan filayay qur'aan un inaad iska dhagaysanaysaan laakiin markaan isoo hor fadhiistay ayaan waxaan ogaaday buu yidhi idinkoo masjidka ku jira inaad ka sheekaynaysaan adduunyo howlo kalaba abu muslim alkhawlaani wa amhaaluhu iyo dadka markaa la mid ah waxay u arkayeen khayru maa yaqdi calayhi almar'u waqtahu inta ugu badano qofka bini aadamka waqtigiisa uu ku luminaya inay noqoto dikrullahi wa khaasatan masaajidda marka wax loogu talagalay waxay culimmadu marka tilmaamayaan waxaa jira madaahir ififaalooyin muujinaya in qofkii laga hela astaamahaas inuu yahay qof adduunyada xaggeeda marka u janjeera waxaan rajaynayaa biidni illahi subxaana wa tacaala iyadoo qodobadu marka ay kooban yihiin astaamaha qofka laga hela noocan ma waxaa ku jira shay lagu magacaabo adduunyo jacayl waxaan u malaynaya inaynan ka wada badbaadayn midda ugu horraysa ah hadduu qofka is arko inuu iyada uun mooyaane wax kale aanu eryanayn waxa uu ku xisaabtamayn adduunyo oo ay tahay hadduu is arko shayga keliya ay weydiishanaya adduunyo inay tahay uun keliya hadduu is arko wax kale inuusan qaamuuskiisa ku jira ilaa hiya ha ogaado qofka isaga ah in laga helay astaantii ugu darnayd ee lagu magacaabayo xubu dunya waana qaybaha ugu dambe oo mafaasidda aan dul istaagi doona biidni illahi subxaana wa tacaala cabdullahi bni xaaris ibn nawfal baa wuxuu leeyahay kuntu waaqifan maca ubay bni kacbin radia allahu canhu ardaa ubay baan meel la taagnaa buu yidhi kadib kelmad buu yidhi dardaaran wuxuu yidhi laa yazaalu annaasu
مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا dadku inay u hanqaltaagayaan adduunyadan kama badaalayaan biire kama zuulayaan waa shay caado markaa u ah idan haddii annaas la yidhi aniga adiga ugu horrayna haddii arrinku uu sidaa yahay waxaan u baahannahay marka mafaasidda inaan ku ogaana meesha markaa dhibka ay leedahay iyo dhibta marka ay leedahay arrinka labaad adduunyo oo la raadiya waxay ugu daran tahay camal aakharo markaad adduunyo ku raadisid markay ugu daran tahay waa camalkaaga aakharo cilmigaaga aakharo loogu talagalay salaadaadii markaad adduunyo ku raadisid fatwadaada markaad adduunyo ku raadisid soonkaaga markaad adduunyo ku raadisid khayrkaaga markaad adduunyo ku raadisid waa markay ugu daran tahay ولذلك wuxuu dhihi jiray مطرف هذا التابعي إن أقبح الرغبة في الدنيا أن تطلب بعمل الآخرة waxa ugu daran ugu foolxun ragbatan ugu xun ee qofka bini aadamkaay qalbigiisa soo gasha waa inuu camalkii aakharo adduunyo markaa ku raadiyo hadalkii fudayl baa wuxuu ahaa aan ka fogeyn wuxuu leeyahay lian aakula addunya biالطabli wاlmizmaari axaba an aakulaha bidiini inaan adduunyada ku raadiyo inaan muusi ka garaacdo oo durbaan garaacdo oo kaman garaacdaal iiga khayr badan inaan aakhara marka camalkayga ku raadiyo inaan fato beena dadka u sheego ndha waxaan waa idiin bannaan yihiin kadibna ummaddii meel kale aan kala dhaco inaan camalkii aakhara loogu talagalay inaan adduunyadeeda ku socodsiiyo waxaa taa iiga wanaagsan buu leeyahay inaan meeshaa giitaar soo qaato durbaan soo qaato meelaha kawkawyo boodboodo kadibna aan shilin markaa kusoo dhacsada buu leeyahay dadka salafu hadi lumma macnaha bay marka u fahamsanaayeen marka laga hadlayo mas'alat addunya malik ibn anas ayaa wuxuu leeyahay qaala lii rabiica oo ila fadhiya rabiicana wuxuu ahaa ustaad malik raxmat ullahi calayhima wuxuu yidhi yaa malik man isafala ma ii sheegi kartaa kuwa liita ee dhulku dhaca ah oo wax ka soo qaadka aanan ahayn oo wax qiima aanan lahayn ma ii sheegi kartaa wuxuu yidhi man akala bidiinihi qofka diinkiisa wax ku cuna markaasuu yidhi waxaad iiga warantaa man safalatu safala kuwa saafiliin inay yihiin waan ogahaye kuwa ka sii liita ii sheeg wuxuu yidhi man aslaxa dunya hayrihi bifasaadi diinihi qof kale adduunyadii ku hagaajiya isagoo diinkiisa fasahadiya yani maalan waa nin caalima oo loogu talagalay kelimadda xaqa inuu ka run sheego kadibna nin kale uu kursiga u ilaalinaya wuu u fatwoonaya wuxuu leeyahay way kuu bannaantahay in waxaan samaysid way kuu bannaantahay in dadkan laga takhalluso way kuu bannaantahay waxaanan in la sameeyo mar walbaba fatwada ka dambaysu marka keenaya ninkan muxuu ku mashquulsan yahay islaaxu dunyaa hayrihi bifasaadi diinihi nin kale adduunyadiisu marka isku toosinaya laakiin waa maxay calaa xisaabi diinihi diinkiisu marka ku tumanaya idan waxyaabaha waxay ka mid tahay muujinaya madaahir xubi dunya madaahir xubi dunya waxaa ka mid a qofka inuu raadiyo kursi inuu raadiyo ilaahayna markuu ka hadlayay wuxuu yidhi iyadoo dhan markuu soo koobo wuxuu yidhi tilka addaaru alaakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi alard walaa fasaada walcaaqibatu lilmuttaqiin taas la soo xuso waa daartii adduunyo waxaanu u sii daynaa dadka aanan dan ka lahayn inay isku qaadqaadaan ardadan dhexdeeda inay fasaad la yimaadaan aan dan aanan ka lahayn caaqibada dambe ciribta dambena muttaqiinta ayaa iska leh ولذلك رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كعب وحوها ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه وحكف سهادين أجملها بوليها قفك مؤمن كأدين كيسة يعني سدا لبيي أو قاعد جيسان هدين لقول لحدي بار أما لقول لحدي حين أريا سدا أبا بإلا هايان أبر بريلا هايان أي قفك مركو مال يا كرسي أو راديو دين كيسان أساسه قلت مريا دين كا وحو بابحيا وبربحيا مركا أدراديسيد شيء الديو مركا أدراديسيد مركا أدراديسيد مال مركا الرادي دين كوكو دينيا مركا كرسي الرادي دين كوكو دينيا وأن أوغان دوندا بإذن الله سبحانه وتعالى مظاهرة مركا نوجدنا بإذن الله أيان أوغان دونا معناها مركا إلا هذا مفاسد بي الدنيا الله هذا هاي إن الدنيا لا جعل هذا مفاسد فربضان بي الله مفاسد أوه الرئيساي ومد أوه الرئيسكو وهذا الكولية هاي ابن القيم الجوزية مفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل فرها لو تبابو شيشتو آخرة أياوحو يقفك إنو يديش قفصده ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة خير والبر وحا فروة
إن إلهي من حقه سوح لقى الراديو آخرا مركا الراديو ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل شرطا فره إذا نوحى إن الدنيا ذا جعلاده قفكنا مركا إذا إسسيسيو إذن معناها إساقة وحو موجينيا شرطا وحا لنوفر يا مركا إذا أنرادينه ولذلك سدح الرمود قفك هدو ماشان وكالتغو وحو كالتغي خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى هدي إلهي سبحانه وتعالى ماشان أنو كلبت بأنه أما أنو لبت بأنه أبت كماشان أنو لنمت يقف والبقو ماشان ودو كتغي إساقا وفاميليجي واد إسواسا فاميليجي شالي ولا يميدو إسايستا وأن كلا قبالي ماشا هدي لغتا يقف كوبت بأذي بإذن الله سبحانه وتعالى إيضا ما انكاغو أفضيو ونوعا ما وح وريرة إي وسواسة إي بوفيس إي والي هدان وأنا يكون عنا واد بدبادة بإذن الله سبحانه وتعالى حالة سدحاد وحيتها إذا الدين كاغا آنو سوقلي وحنو قيلة وح جلايعة دبع سنان هداني سوقلي نقفكو بدبادة سدح ذا الرمود ومفتاح الخير سدح ذا الرمود وحي كالصهري صوماها فإذا كان قفك الرادين لها مركة ملها فيما يتعلق بهذه الدنيا إنه قفك وكدع في الكفر مفاسد أيلادها الدنيا ذا وحكم ذا الوقوع في الكفر إن قال لما لقول عيادة درتيذا سادرت بوح ليها ابن تيمية مركو أقري قوله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين وحوت المامولية قفكي قالوا به من بعد إيمانه إلا قف لغو خصبي مويانا لكن قلبي سو إيمان أوفرديو أما قفكي إسسية كفرك صومها عذاب درنبو ليه بوك آخر كوحو ليه ذلك قالوا بالهوا قوة وحو ليه ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا قال لماذا وحا كان محايا لي الدنيا دي بيجعلادين على الآخرة آخرة يكدر بذن وأن الله لا يهدي القوم الكافرين قفك هدوم الدنيا دي إسسيانا وحي أبضانتها إني حقا كفرك أصري كحيث إلهي سبحانه وتعالى كافرين تمركا مجعلا ورسولك صلى الله عليه وسلم مركو ليه هاي قفك وحو وابريسة إساقو مؤمنة وحو قبل كان أدع إساقو قالة وحو قبل كان أدع إساقو مؤمنة وحو وابريسة إساقو قالة وحكى لما يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل الدنيا دي سوحو سيسانا يا يعني بربر الدنيا دينك سوحو سيسانا يا بربر الدنيا زولي برسولك صلى الله عليه وسلم يلي حديثك وحديث قفك كبيري كربقدين آدي دول محايا لإن آنو بان آنو شاقنه وحاكياني وحكى لما الدنيا رادس إن قفك أسوء أمبا قاتو شيء أنا بنانين أو إله سبحانه وتعالى وحارانتين مية وحاكياني الدنيا رادس إنه قفك إلى هذا يا شيخ مليء قل هاي إن ما أركت سي أن شرع أهله كاديدة إن كفر حشا وحاكينا الدنيا جعل إنه إلى هذا ما كوكيني كرا هاي مجع إلى تهاي إسلام أنيق أنقبه وحاكينا الدنيا جعل إنه إلى هذا ما بنانتها إن الدور مجع عياشنا وحاكينا الدنيا جعل إذن كلما قفك يتعاطى معها وإسسينيو الباب هذا وكفرريو الباب ده بمركب وجود بريسة أرجع كلا بعض وحويه أما مفاسدك لا الدنيا جعل كلها هاي وحوليه هاي قفك وابا لقوا عقابي الدنيا دي يرى عقاب كون قناة الدنيا أنت اللي تجوجه وحوليه هاي ابن القيم الجوزية محبها أشد الناس عذابا بها قفك الدنيا جعل هذا وأنك أقدر أن لقوا عذابي maxaa adduunyada waxa lagu cadaabaya kow iyadu maanta dhunuhan qaltaago eryanaya barzakha marka la galo oo la galiyana oo iilka la dhigana aad buu marka u nadaameynaa uu xasaroonaya xarka xaaladda saddexaadna waxay tahay waxay u badan tahay wuxuu raadinay marka inuu san helin waxaan leenahay markuu Allah subhanahu wa ta'ala fala tu'jibka amwaluhum wala awladuhum inma yuridu Allah liyu'adhibahum biha fi al-hayati ad-dunya ayadi kalana fi ad-dunya ba'ahayd وتزهق أنفسهم هم كافرون وحبيان يكياب جلين مال كودا أولاد دودا محايا الإله سبحانه وتعالى وحر ربائنه الدنيا مركا وكو عذابه عذاب قفك مركا وحاقوه فلان أفر تكومي كسوق شيء إذا عذاب مركا وكو فلان أفر لا تنكسا وطنار كيسا أفر كومي بعد ما أنت نسوق جينيسا وحلقا فكر كأيكا يعني أفر تكومي فكر كوكالات تجي وحلق قياسي كرا مركا مالا وحلقا وقفك هدو مال فريسا لها إنه أمدا وكسر كردين لا وحيا وفر بضانا هداء النقضة هرمر النقضة
laga yaabo qadaayaadkan mushkilada maanta muslimiinta ku ah inuu xal marka u heli lahaa laga yaabo qof caalima hadduu yahay intaasoo mu'alafaad inuu ku qori lahaa laakiin 24 sacyada lagu mashquulsan yahay oo awlaad baa lagu mashquulsan yahay oo maal baa lagu mashquulsan yahay tiina ilaahay subxaanahu wa tacaala marka waa nagu cadaabay oo cadaab inay tahay waxaa muujinaya waad aragtay 4 kubi markaad maalin isku duudo maal aad dhigtid marna kabarka horaad gelinaysaa waa ka soo qaadaysaa mar waxaad geenaysaa bangiga waad ka soo qaadaysaa ama waxaad leedahay canshuur lagu soo weydiiya mar gurigaad keenaysaa islaantaad ka qarinaysaa mar meel kale aad gelaysaa dhowr dhaar baad marka ku xayndaabinaysaa intoo dhan waa 4 kumi dhibka ay ku marinaysana wax la qiyaasi kara markaa ma laha wa fii nafsi alwaqti haddana awlaadii yacni maalin walba waxaad ku mashquulsan tahay ma intaan dejiyaa ma yeman baan geeyaa ma masar baan ka ridaa ma waxaan ka ridaa suuriya meel kastaba ilan shayga kan oo allah subxaanahu wa tacaala ilan markuu sifaynay fi bidaayati alamr wuxuu yidhi حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة يضرن انت بك كوبنتا تيبا إله سبحانه وتعالى مركا نقو عذابه قفك مركا مدريمي نفس مركا مدريمي oo 24 saac waad mashquulsan tahay ama waxaad ku mashquulsan tahay sida shilan u soo dhacsan lahayd ama waxaad ku mashquulsan tahay 40 meesha aad u soo tahriibisay saad u badbaadin lahayd intaba waxay la tageen maankeena la tageen oo waxa keena fakar farabadan marka inuu yimaado idan allah markuu leeyahay fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum inma yuridu allah marka leeyahay inuu ilaahay ku cadaabo macnahaas marka tilmaamaya maaha tafaasiirta culimada ay saari jireen ama an yasbiyahum in la qafaalo inta kaliya oo maaha sida marka ibn taymiya marka uu ku baraarujiyay arrinka kale adduunyo marka la siiyay dhibka ay leedahay waxa kamid ah inuu qofka uu ka dhowsanaado amalkii aakhiro isla markaana taqsiir iyo gaabin far badan ay ku timaad amalkii saalix ahaa xadiis baa wuxuu ahaa abu muusa al-ash'ari laga wariyay man ahabba dunyaahu adarra bi aakhiratihi qofkii adduunyadiisa jeclaada dib wuxuu soo gaarsiiyay aakhiro waman ahabba aakhiratahu adarra bi dunyaah qofkii aakhiro jeclaadana adduunyadu dhibaa mar haddii arrinku uu sidaa yahay faaathiru maa yabqa calaa maa yafna wax raagaya oo taagan aanan dhammaanayn taa qaata oo tii tagaysay oo noocan maanfaaniyada ahaydna iska daayaba marka leeyahay macnahana wuxuu tilmaamaya macno ah in waxyaabo fara badan oo ka mid ah acmaasheenna taqsiir fara badan baa ku yimid oo waxaad arkaysaa qofka ninkii wadaadka ahaa oo aad taqiin oo markii uu masjidka uu soo galo salaada tukanayo duhurkana intaasoo sunan buu ka hormarsiinaya oo casirka waad arkaysaa sunnadiisa kama tegay oo markii maqrib la gaaro sunno u wadaa oo salaada subax sunno u wadaa oo leelka kama tegay oo xisibkiisa ma dhaafayo oo 24 saac kitaab inuu iska mutaalacay u badan tahay hadda waxay u badan tahay dadka say u badan yihiin hadday faradka tukadaan bay nasiib leeyihiin waxay u badan tahay qofka haddii soonka faradka uu tuutu nasiib u leeyahay salaada marka la tukado inuu qofka uu fariisto awraada u aqriya ayaa ay yac nasiib maxaa yeelay 24 saac waxa ku qufulan barnaamij kale oo business ah waxba wax lagu darsadaa buu maqlay ama wuxuu maqlay xaggaas wax laga soo dhacsadaa wuxuu maqlay intaasoo shayr baa la helaa buu maqlay tiibuu marka u mashquulsan yahay tii marka waxay keentay darar kabiir oo ku yimid cala camal alkhayri waalcamal الصaalix markaasuu rasuulka sala allahu alay wasallam xadiidka bukhaari wuxuu ku yidhi tacisa cabdu diinaari tacisa cabdu dirham waxaa halaagsamay oo hoogay ninka addoon u noqday dirham iyo diinaar buu yidhi markaasuu wuxuu rasuulka sala allahu alayh wasalam tacisa wantakas buu yidhi wuu halaagsamay wejiguu dhulka ku dhuftay وإذا شيك فلن تقش مركي قدح ودرتنا اسكما بحشا وقوسا اسكبو حنبي رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كان أو الدعاء عليه نحن بارسوح موجي قفك الضون النقضة انشلنك يعني وانا أرن كان إنه لن رنتي إنه هيستا إنه قفك الضون النقضة شلنك وانا الضون النقضة وحد أركي سلامة الروح المسلمين تأها أو شلا ولا لها أها أو شلا شلنك اسكو درصدي أو مال ودا آذي أما كي كلا دعان ama Soomaaliya kala dhaceen ama meel un bay furteen labadii oo kala qabanaya maxay labadan meesha waxa ka baxay wax lagu magacaabo al-ukhuwa al-islaamiyya meeshii ka baxday waxa meeshii ka baxay al-amal as-saalix meeshii ka baxay arrinka markuu yimaado dhibkeeda marka leedahay waxa kaloo mafaasida ay leedahay adduunyada waxa kamid oo la jeclaado waxay adduunyada ay barabixinaysaa qalbiga ay ka saaraysaa Allah subhanahu wa ta'ala jaceelkiisa waxa adag in adduunyadaada ama qalbigaaga ay ku dhaxlamaabowaan ay isugu tagaan oo mataana ku noqdaan xubbullaahi jalla wa ala xubbu dunya labadooda inay isku mid noqdaan oo garab socdaan fi qalbika ay noqdaan way adagtahay labadooda mid un baa tagay ama waxa haraya xubbullah oo waxa barabaxay xubbu dunya ama waxa haraya xubbu dunya waxa baxrabay xubbullah labadooda inay meel galaan way adagtahay maxaa yeelay xubbullah wuxuu keenayaa qofka shilinka isku qabsata ina ilaahay subhanahu wa ta'ala dartii kaga tanaazushid xubbullah wuxuu keenayaa marka lagu yiraahdo maal khayra shirinkii loo wada inaadan jeebka aadan ku hayn aad soo deysid
حب الله وحو كينيا إن قف كستو مؤمن ودباتيسن أتاكوليسن حب الله وحو كينيا مركا أد مقشد قال الله وقال الرسول مركا أد مقشد إن أدهر مرسو شلنك أدب أد مركا ويكتد أما حب الدنيا مركو ماشي أجري أنت كلا أدهر مرينيسا لبدو هدانا اسكو مدهن دب كيدا مركا لادا وحيابها كلا مفاسد إلا ذا وحا كمدا قفك إنو سن ذكرك إلهي ولا تكذا ولا صوما أوراد بالأقرية هدانا دادا ملها وحين نقطة حياتي أشبه ما تكون بالحياة الميكانيكية بر لكور ساري أو كلاوي وهدان مقراسيد الأحمر ويدواقيسا قف كان وصاك عيا فرها نوحينيا وتاغيها وتكذا دادا ملها عبادتي ويسوي ديني سوحا لدوان تكذا دادا ملها عبادتي معايا لي كلما قفك والدنيا إسسي عبادة ما دادا سنكره ما دادا سنكره سبحان الله مركوليه دادا أمصة ما ينسى مركوليه الحمد لله قرآن كمركو أقرنا حتى تفسير كيس هدو عالم كن نقضي حتى ما فهميه مركو إلهي هرتاجه اسكو بدما وهكذا الدوالق وما شاء إليه ابن القيم الجوزية بدنا لبا الروح أو قربك اسكو هيسا صلاة وذا تكنية إلهي هرتاجن من صلاة دي سسمادا سجرتا من الدولك ويداف الله ضحي كان صلاة دي سسمادا يجرتا وكان ملكوت الله جل وعلا مطالع عينيه ومعاني ذا آياتك إليه لفل قليه دادن سنة أذكارتا وأقرنيه كان كلا صوما وحو حسابنا الدنيا دي وحو حسابنا وح الله وحي مركا ما أنت صاقله وحو حسابنا وحو بحي أردن انت مركا ووحيابها كان قفك إنو صددان سن ما يسمى بالعبادة وحي لمده وحيابها الدنيا ذا أي لا ذا من دباتة ذا الله وحكم ذا مفاسد ذا حديث رسولك صلى الله عليه وسلم وحو تلمامي إن قفك إذا الرادين تذا فقر دائما وكقاضي فقر دائما وحا لغا قعميه سو إني بوحان جيب كيسو بوحو أكاون كيسو بوحو شيرر كيسو أي بديهن ومع ذلك أنت أوام وقت إساقي إنك هالك الدولار هايستاي وإسكو فكر ول وفي نفس الوقت هذا روح أسي وليه تشتت فكر كيسو دان إسكو مباقنا أو مفرديو ولذلك حديث يوحوها من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله قفكي وابريسة إذا همك أقوين أوليه الدنيا أيتاي وعلى وحي الرسنا ونبا لك الدادية وجعل فقره بين عينيه فقرنا وجهك الله وقرا ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له الدنيا أنت لا قري وقال إيمانية ومن أصبح والآخرة أكبر همي قفك سواب برسيئة آخرة بريورتك أيوتها وعلي جعل الله غناه في قلبه هذا انت ماذا أرادين قلبك اللوغليا وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي راغمة وحال وحي كضيعنانا يعني إلهي سبحانه وتعالى وكينيا الدنيا ذا أو سند اللي سنة هرتيسا لسوء رمينا برسولك صلى الله عليه وسلم يلي حديث مركا وحو موجينيا شملقي كالتقي أما قفك كان فكر كيس إنو كالتقو إن نوعا ما هلمان كان أبطو هلمان زيادة محايا الهلمان كزيادة وحكينا بقول كي بتضباطا ذاكرة قفك بني آدم كهولا كلا مركب بوحي كلما ذاكرة أما حصوص هذا أي بوحسنته هار ديسكي إلهي سبحانه وتعالى هو طلق على إنا دوح كل حسوس مرة هدي بوحسنته إلى الدنيا بوحسي بقول كي بتضباطا بقول كي بسيدتا إنا دوح حسوس استديات بي مركب ويرانيسا وأنا وحينا ولا هيستيقنا ورقنبا إذن وحيابها كالو تلمام وحا كمذا غاية قفك أنه قنا يسابيري بمعنى إن يلوغ كلية أما هكسيك كلية قفك كان أوليه إن الدنيا أنه قتال قاريا ومفسدة كلاء سقالات إلهي وحي القرآن كأكيري من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أيضا وحي لا قفكي الدنيا راضية انتو دوني وانسيننا لكن آخر حكم لها آيات لو حيل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم أصلاها مذموما مدحورا قفكي الدنيا راضية وانسيننا لكن وحا كدن بيسا آخر وحو نقونا من له ذاتي آيات لو حيل هذا من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه قفكي بار الدنيا راضية ونكررنا وانسيننا قفكي سرادية كلا صوما وانسيننا وما له في الآخرة من نصيب وما له في الآخرة من نصيب آخرنا وح نصيب ومركاكم لها ابن تيمية وحولي سدح ذن آيات أضير كيسان كل وإسكو معنى هل شيء وحي تسيان من أراد بعمله الدنيا وزينتها قفك عمل كأولاء من الدنيا دلال كذا مركا كرادية إلهي آخرا أنا كرادين انت والربي وحي أهد الدنيا لسينا آخرا ولا قدنا الدنيا الله سينيا آخرا ولا قدنيا
معناها مركا ومعنى دقيقة سد هذا أيضا وحي موجيا هدي يول كاغا هيكسيغا ودن الدنيا أنا يسوق بيشبته إلى الدنيا دو كسينيا لكن آخر واحد إن هذا كل هاي مفسدة كلا إلا ذو حكم ذا أجر كلا قاضيا نمنك لكينا يوم القيامة نين قاري أيا لكينا مركا سوحا الدنيا لم حد قرآن كاو أقرسي وحير يا الله أديك درتها بأنه أقريا ما يا قاريها اللي يقول هذا عد قروح سنة اللي يقول هذا أوصى ميس عالم محاد علمك وش يجي جرت أوبرتي يا الله علمك إن أنفع فيه ما إن عالم اللي يقول هذا الله قاشك شيء ولا يقولي كي مالك بحيي ومحاد بحسي يا الله أديك درتها ما يا سقي هل يقول هذا واد قعان فرنت أنت نواصى ميس وحوم اللي كي كلا مجاهد كمحاد وجهاد يا الله أديك درتها ما يا هل هل يقول هذا أهيد أنتوا الدنيا ملهي ماشى مركولي ابن القيم الجوزية هذا البوليها فانظر محبة الدنيا ماذا حرمت هذا المجاهد من المجاهدين من الأجر أرق بقفك كان إلهي درتي أتاقنا إلهي درتي أهل قمي أجر كمركا لقاه جي أرق وأفسدت عليه عمله وجعلته أول الداخلين إلى النار عمل كي سنوائي فسهدي دتك أوهر نار تقلين إلهي سبحانه وتعالى وكذلك الدنيا ضم أنت الجوكتي بعد دكتونيسي وسود داشي خير بعد ودي وحبذا بسمينيسي لكن waxay ka ahayd in kaliya laga sheego waxay ka ahayd in kaliya amalka kan adduunyo oo ku gaar ilaahay subhanahu wa ta'ala marka wuu ku siiyay adduunyadii laakiin aakhira waxba marka kuma leeyahay amalka kan ama markaan aqriyo xadiiska kan mar walba waxa igu soo dhaca ahwaasha aan ku sugannahay dadkeenan qarbiga marka jooga qarbiga walillahi alhamd shartiisa oo kaliya ma sheegayn ee markii meeshan la yimid khayraad fara badan bay la yimaadeen oo bulshada Soomaaliyeed bisifa khaasa خيرات فربدن بالا يمد مراكز بالا ديسي منتديات خيرية للسمية مؤتمرات خيرية للسمية انت خير باسا يسو دردريا إلهي سبحانه وتعالى خيرات بمركة كياني هذا واحد أركيس عمل كي خيري أها اللي قلت لك إلهي كريم اللي قلت واضح إنه عملك إسبدلي أو شيء الدنيا مركة أو صاق علي واحد أركيس مركز مراكز كميدة ومركز لو قلت لك إلهي سبحانه وتعالى لو عبده ومسجد لو قلت لك إلهي سبحانه وتعالى لو عبده baa waxa la isku haystaa ninkii idaareyn lahaa waxa la isku haystaa gudiga hagi lahaa waxa la isku haystaa kii maalka hayn lahaa waxa la isku haystaa kii adimi lahaa waxa la isku haystaa kii imaam ka noqon lahaa waa markas kaba dhig ba adiga maanta gacanta lagu geliyo wuxuu yiri adaa mas'uulka ah adaa idaaradii haya lagu yiri adaa dadkii hagaya lagu yiri laakiin hadii arrinkaagu uu noqdo hal soo sharaxdido taa lagu soo doorto oo group ah soo kaxisa lagu soo doorto oo meeshii ay noqotay sida baarlamaanadii marka la isku herdaynay oo kale arrinka uu noqdo waxa runtii aan ku xusuusin lahaa xadiidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam niyo idaarada imisa soo heysay 5 sano 6 sano 2 sano 7 sano soo heysay maxaa inta u sameeynaysa ya allah adiga darta maya been baa sheegtay waxa ahayd wax kale ma ahayna nambara kale aad meesha ku xajinaysay nambara kale ayaa meesha ku xajsanaysay dan kale ma adan lahayn meesha waxaad u taagnay soo maaha in mudiir lagu yiraahdo waa lagu yiri waqad qila fi dunya aakhira waxba kuma leeyahay hawshan marka amaashan khayriga annaga aan wadno weenan adduunyo marka aanay soo gelin haddii adduunyo ay soo gasho adduunyadina ay soo gashay masaajidi haddii kuraasi aan isku soo laynay haddaan isku soo laynay malaa'ikti kale haddii la isku soo laayay majaalaadka siyaasiga haddii wax kasta la isku soo laayay diintii marka u soo biyo shubatay yani diintana waxa lagu ogaan jiray masaajida imaam iyo muadin iyo oday xaafada degan oo baashaha u soo karin jiray fooxana shidi jiray woona gogli jiray waan lagu kala tagi jiray taasaan ogeyn laakiin meel guddi 30 qofood 50 qofood 70 qofood baarlamaanka Chinese ka badan waxa lagu arko Yurub baa looga yimid group inuu group kale uu ka go'o waxa looga yimid Yurub baa looga yimid group walba inay maanta TV-ga soo hor istaagaan masjid dhisaan waxa looga yimid Yurub baa looga yimid laba sheekho isaysto la kala qabanay Yurub baa looga yimid adduunka saama ahaan jirin yani waxa lagu ogaan jiray masaajida أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا تابع هانجرتي ومركو بوق ويماضو ودب مركا ويماضو خير بوم بالو إصلاحين جري مسائل دينية اللي يسكو قبسان جري ولا حلين جري مذاهب بالو كلا حلين جري ويسكو سهلنايد لكن ما أهين أنا ماشان كتلينيا أما ريركيغا كتلينيا أما نمبرات أنيغا وتكريا كتلينيا أما وهبكي برلمانكا وحوكا لقيبسانينا لما أقوني في السابق لما أقوني وحوليها مركا انظر كلمة ابن القيم الجوزية وحديث كفسير عيسى محبة الدنيا أرق بل الدنيا جعلك وحا أدقي وحو دقي نينك كان انت سوتاقنا سيفتا وتولها يا الله أذيك درتا بأسوها القمية أيها وحالي ما أنت أجر ملهد كورا انت أدو دالي أو خيرك السوال هديل وحو ملهد إذا وحا لأنها عملك وعمل إلهي سبحانه وتعالى درتيو الدنيا ما لا فربضان لقى الرسالة أيات جرى كرسيك كلا لقود دقال لما أيات جرى
baarlamaano kale ayaa waxaa jira buuq iyo in kursi la isku garaaca u diyaara ayaa jira laakiin meesha waa masjid waa baytullahi jalla wacala waa markas weeye in ninkii wadaadka shalay bulugmaraamka lagu inuu aqriyo maanta inuu howlo kale la soo baxa maaha wixii masaa'il diiniyan ummadan iyada culamadeeda marka u joogta biidin illahi subxaana wa tacaala xalinaysa laakiin adiga labadiinaan maanta kuleetig intaad isku qabsataan maanta la kala jiido maxabatu dunya way waxaana iman doonta xadiidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamayay waqad qiila waa la yiri inta tarabta wada hesha dunyada marka lama hortaagi karto yawm alqiyaama allah subhanahu wa ta'ala ya allah markas baan u soo khidmeeyay ummad baan isku waday dacwadaadan badbaadiyay marka qarbiga la joogay buuqa runtii annaga ma maqalno wadanka markii xitaa wax naga soo gaaraan waxa la maqlaan masaa'il diini la isku qabsaday iyo group qabsada laakiin yaa ka talinaya hawshan waa hawl cusub maxabatu dunya mafsadada ka leedahay waxa kamida tuqyaan kibir ilan qofka markii shilin ilaahay subhanahu wa ta'ala gacantiisa uu soo galiyo uu kibraya waa meesha uu leeyahay qala allah ta'ala kalla innal insana la yadgha an ra'ahu istaghna insaanki waa uu kibray wuu qooqay meel aanu gaarsiisnayn buu isgaarsiiyey meel aan la gaarsiin buu isgaarsiiyey maxaa yeelay wuxuu isbiday inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka deeqtoonaado ama maal buu ilaahay subxaana wa tacaala gacantiisa geliyey ama awlaad tiro badan oo garabkiisa taagan baa ilaahay subxaana wa tacaala siiyey ama adduunyo isku qoofalan baa ilaahay soo hordhigay wuxuu leeyahay khalaas ana kaafin way ugu filan tahay wuxuu yidhi ibn kathiir ibn abi xaatim baa wuxuu yidhi wuxuu ii sheegay ismaaciil ibn assaaiq jacfar ibn cawn uu ka soo xigtay isagana abu cumays ka soo xigtay wuxuu leeyahay عبد الله باوحي من هماني لا يشبعان لبر روح وقاجي سنب ولقد مدرقيان صاحب العلم وصاحب الدنيا قفك علمي الرادين مدرقي ما انت مسألة سو زيادة كتاب صوب بحي بكو هنا قفك الدنيا الرادين ينا رنتي اسقنا مدرقي محي افر لا تنكس بيسنس ما انت لقى شير بالله فرب بكو هنا ما انت مركز حيرة اما صاحب لا يستويان لكن لبدا اسكم معها اما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن هدو علم الرادين إلهي سبحانه وتعالى رادين شيء زياسنا صاحب الدنيا صوما فيتمادى في الطغيان كبر إيو مضح عليك بوبسكسي قاضيا مركزوح أغري قوله جل وعلا كلا إن الإنسان لا يطغى مركزوح هدنا وحير مرفوع وهي من هماني لا يشبعان طالب العلم وطالب الدنيا وحيابها كإيمان وحا كمذا مفاسد إلا ذا وحي أبضا أنت قفك مركو الدنيا ذا إسيو إن آد فتوتيد فتاوي oo ilaahay subxaana wa tacaala aan ku been abuuratid oo iyadoo aadan u aabayeelin waxa meesha ka imanaya ujeedadaada ay tahay un keliya bal adduunyadaada marka ilaasho wuxuu leeyahay ibn al-qayyim oo in fara badan aan ka soo xiganayna kitaabkiisa wuxuu leeyahay man aathara kullu man aathara ad-dunya min ahli al-ilm wastahabbaha qof kasto ahli ilmi adduunyada jeclaada iyada door bido isisiya fala budda an yaqula ala allahi ghayr al-haqq fi fatwa waxaan laga maarmin aanu ka baxsanayn inuu ilaahay ku been abuurto oo fatwo ilaahay raalli aanu ka helin inuu dadka u fatwoodo haddana wuxuu leeyahay maxaa yeelay axkaam rabbi jalla wacala laa ta'ti cala daa'iman maa ta'ti cala khilaafi aghraad annaas axkaamtan ilaahay subxaana wa tacaala uu jideeyey iyo manhajkan ilaahay subxaana wa tacala uu fara badanaa uu khilaafsan yahay waxa aniga aan rabo adiga aad rabtid waxaa laga yaabaa dan gaara aniga inaan leeyahay laakiin allah subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala hadafka meesha uu ku sheegay wuu khilaafsan yahay hadafkayga aniga waxaa laga yaabaa dan gaara inaan annaga u socono laakiin ilaahay subxana wa taala iraadadiisu marka ay ka duwan tahay arrinkaa markay dhacda buu leeyahay ibn alqayim aljawziya waxay u badan tahay qofka marka inuu qalloociyo fatwadii markaas wuxuu leeyahay ida kana alcaalimu waalxaakimu muxibayni lilri'aasa muttabicayn lishahwaat lam yatima lahum dalika ila bidafci ma yudaadahu min alxaqi qofka caalimka ah iyo ninka kursiga ku fadhiyay labadooda hadday kursi ilaalis yihiin adduunya jacaylna marka uu ku jiro waxa kaliya kursiga ku ilaalin karaan cilmigiisa oo qofka kan lagu leeyahay waa caalimna uu ku ilaashan kara wax kale maaha inuu xaq kasta ee ka hor imanaya amaba did ku ah kursiga ninkan uu ku fadhiyo ama cilmigiisa lid ku ah ama booskan isaga uu taagan yahay inuu celiyo oo ka hor yimaado mooyana wada kale markaa helaya markaa malaha markaas wuxuu aqriyay qowluhu jalla wa ala fa khalafa min ba'dihim khalf ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثل يأخذوه ألم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه مركزوا حيردتكم أيجب تلمامي الله سبحانه وتعالى أوليها كوا حنبا كدن بي كتاب كيبا يدحلان وعلماء لكن الدنيا بربر كيدا رفصانا ينبير مركي خلط قالنا وحين سيغفر لنا إله وندم مدافع دونا هذا نعرين كلا إيمان سيغفر لنا إله وندم مدافع دونا وماشي عالم السوء يودد حمه وكسب بحيوه إن آيات والبابا واللقنت وكجبيه
ninka kan kursiga ku fadhiya ama wasiirka kan inuu fatwoodo inuu aayadan uu luqun jabiyo si markaas sumcadiisa aanay u lumin oo dad fara badan boobale fara badan uu helo saadarteed uu sahlantay inuu yiraahdo ummadda oo ribada u baneeyo maxay wuxuu ilaashanay number u ilaashanay maxay dadka say u badan yihiin wa in tuti akthara min fil ardi yudilluka an sabilillah boqolkiiba 90 inta ribada daydayaysa ayaa badan weyna ka badan inta xalaasha u raadinaysa waa inuu marka fatwooda ribadii waa inuu fatwooda marka wax alla wixii marka la xiriira maxay uu yiraahdo kan way shaygu uu banaan yahay maxay yeelay wuxuu rabaa number ka kala daadan laha inuu isku keeno waa inuu fatwoodo oo dawladii meesha ku hay waxay doontaa ha noqotay maxay yeelay wuxuu rabaa inuu ilaashado number gaara idan mas'alada dibkeeda marka leedahay مفاسد إلا ذا وحكمدا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه وانا قدتك أوفره حميدا مركا أكرر محاد ديدي وحكى لماها محايل الدنيا جعلك دباتة قفك إذا حال سينا يسير وحكمدا إنه بخير كدتك أنا أشيقين أبو سعيد الخدري يقول ليه لا يمنعنا أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهد قفكين إساق قدتك كبا قنايا يانو حق كآمسين حق هدو أركا هيرا هذا هدو أركان هيرا محايا لأنه لا يقرب من أجل بغدنته يعني لا تقرب من أجل فوق مسو دوينيسو رزقنا كما فوقينيسو إليه سبحانه وتعالى شوال المركب وقري إذن الدنيا جعلك وحيابا رقفك ودحلسينا وحاكم إذا أضو أركي شيء منكر إنك كآمسي محانا وذا آمسي إنك دنبا يضا خلاطك ونوم بغضو يضا خلاط أي نوم بغضان هذا خلق الكجرو دباتوين فربضان أي كجران محانا آمسي وحانا سلنا مركا كلمة تراهدين أما الله حرا محانا وذا آمسي إنك دنبا أما مالك للوقيا maxaa yeelay haddii aan ka fakari lahayn aakhare kaliya ay noo muuqato fulinimada wayna dayn lahayd waxaa keenay inuu qofka ibac markaa ku xiranto oo aakharaba aanay u muuqan maxaa yeelay adduunyaan ishordhigay adduunyada markaan ishordhigana wax kaloo ii muuqan kara markaa ma laha waxaan ilaashanayaa meesha aan joogo iyo xorriyadda aan u soconayaan ma ilaashanayaa idan waxay ka mid tahay ixda almafaasid ee marka adduunyada oo leedahay mafaasideeda waxaa ka mid ah hiilkii ummaddu ay sugaysay ayaa dib u dhacaya وفي نفس الوقت هيبتنا وحا إجليسا عدوغا مركا نغسو هرجو دقالك أن كل جننا هيبت بس إجليسا وان كهيبي سننا حديث أول حفظ سنتهين أو كلما حب الدنيا لقاها الله حديث كأوه ريدتك كسو دقدقة وكان حديث كي ثوبان وي رسولك صلى الله عليه وسلم يري يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها وعلى غيابا أما بحاليس أدوتهين إني مركا cadowga uu saas ama ummadaho dhanba saa idinku dul xoomaan buu yiri markaasuu ninkii saxaabiga wuxuu yidhi amin qillatin yawma id ya rasuul allah ma yaraan dad aad u yar miyaan nahay cadadkeeni miyaa yar markaasuu yidhi laa antum kathiir aad baad u badantiin maalinta iyada ah walaakinakum guthaa'un ka guthaa'i sayl laakiin daad xoor baad tihiin wax ka soo qaad ma tihiin wax dad micnaha wax ku fadhiya ma tihiin macna markaa ma lihidiin rasuulka sal alla alay wasalam markaasuu wuxuu tilmaamay wuxuu yidhi oo meeshaan u socday walayanzicanna allahu من صدور عدوكم المهابة منكم عدو هيبيسسدا إذنك هيبيسنا يبقى إلهي سبحانه وتعالى لا تسكى قاضي ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن إلهي قلبي جن وحو قلنا يا وهن بو قلنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الوهن أي وحي يكون نقطة فوكابولري عصب مركز يوحي يا رسول الله وما الوهن محل لجد وهن محوية مركز حب الدنيا وكراهية الموت إن الدنيا رجعلاتان موت كان عاد نعضان موت هدي للنعه الدنيا أجعلاتان ووحا كان إن عدوين أود مركا يشو ومضاها دان انتي ساء سوكين دول حوامان مركا مضح إنك كويان أن لذي كهيبيسان وأن نقطان ومضح دادك أقول ليتا يعني وضع كيسا مالك سوى التكتيد حديث كان شرح ومبهنا محايل وداد والباو مالين بو دول فريسو شرحي أو شرح دي با دول استاكتي وحا شرح كان خير بضان حديث كان لغو شرح لهانا وواقع ما أنت إنك نوم بغض الواقع الماثل أمامنا أي شرح مركا إنه غفلا شرحا إنه قفك وأركه ويكون موقتا مسلمين تمانتا ماشا مريان كيف الكيد ماشا قدام بيس مسلمين تمريا ميتك الجمادي ومسلم ميتك الجورع ومسلم ميتك القطومري ومسلم ميتك ديجي سودادان ومسلم ميتك وحقوري كان ومسلم ميتك وحفهمين ومسلم ملك ست ومسلم شرق وغرب ومسلم وحق لماها محايا نيك المسلم كأ أيا وحو يصدق وحو لقوا مقع حب الدنيا لكن قليل هرا مركا يديه جيران أنك لا نبالي بها كلام أن جعلين محايا الله سبحانه وتعالى أكتسان هذينا حسنيين لبدو مدهم بالنا قفك بغدين مرككم مجرين وحيابها وقدرنا حكم ذا حب الدنيا لباتوين كي كانت حكم ذا سوء الخاتمة خاتمة حن إن الله سبحانه وتعالى قفك وختم والعياذ بالله
intaaba dadaalaysa oo dhibtoonaysa laakiin qofka hadduu yahay qof adduunyada hormarin jiray aakhiro intaan la gaarin wuxuu ku arkayaa fi dunya intuusanba ka dhaqaaqin khaatimo xun walciyaadu billah walidaalika waxay tilmaami jireen ama uu tilmaamay ibnu lqayim aljawsiya fii kitaabi illah wuxuu yidhi nin baa la karsiin waayo kelimatu laa ilaaha ila allah waa loo laqinayo laa ilaha illa allah isagoo xaraaruga dhimanayo laa ilaha illa allah kelmaddii uu aqbali waayo laa ilaha illa allah kelmaddii kadib markii dib loogu laabtay fii taariikhihi kaana yatacaamalu biriba ribaduu ku mucaamaloon jiray waxa uu ka shaqayn jiray waa ribo walidaalika markii kelimadaba loo sheegay zid 3 zid 8 zid 6 un buu leeyahay 3 ku dar 7 ku dar 8 ku dar 2 ka jar uu xisaabtamaya ninka kan wax kale uma muuqato walidaalika qof kastoo inaga naga mida ee qarsada dembi dunuubta ka mida waxa ku bixiyeen ay tahay xubbu dunya ogow dembiga isaga khaatim xumu soo jiida walciyaadu billah laga yaabo dembiga isaga inuu naseejiyo kelimatu laa ilaaha illa walciyaadu billah beentan tirada badan xadka aanan lahayn waxay u badan tahay adduunyana ay noo geysay waxay u badan tahay inay khaatimada markaa naseejiso waa la gartay inaad hal mar been aad sheegtay waa la gartay laga yaabay inaad kutubta meelaha rogrogtay kutub alxiyal oo dhan aad tiri kullu maqsuudin maxmuudin jaazi fiihi kadib meel baad kala soo dhacday laga waxbaad rogrogtay duruuf baad ii keentaad tiri magacyadan tirada badan intay u socdaan oo baasaboorradan tirada badan intay u socdaan oo separationkan aan wada gelayno oo labadan ruux ay isqabto kala dhacday intay u socdaan oo dadkan noocan ma maanta intay u socdaan waxyaabahan intay u socdaan mar kaliya waa gartayoo noocan ma qofka kan waxa laga yaabaa jaahil baan ahaa ma fahamsanin baad ku haysay waxaan loo sii socday intay u sii socdaan waxa laga yaabaa shaygan haddii aan sii wadno inay suu'ul khaatima marka uu keeno wuxuu leeyahay وربما هذا الكدغيسو الحافظ الإشبيلي غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة waxay u badanta qofka nooc dambiga kamida inuu aad iyo aad uga gaalib noqdo ama macsiyada wajaanib min al-i'raab kadib wuxuu leeyahay aakhirka marka la gaaro waxay u badan tahay mawdka markuu imanayo هذه الخطيئة وهذه المعصية inay tahay mid kaliya ee saajinaysa khaatimadiisa inta markaan fahamna kadib waxaan u baahannahay idan mal ilaaj oo gunaanadka noqonayo dawada waan wada baahannahay mar haddii la yidhi khutuuradda ay leedahay kow adduunyada laydinku dultumanaya mar haddii la camalka ay samaynayso dhan waa ka kac mar haddii la yidhi khaatimadiina mawdkii marka mawdka uu yimaada lagu seejinaya mar haddii la yidhi khasaaratu dunya waalaakhira mar haddii wax kasta la sheego xubu dunya ay tahay mal cilaaj cilaajku wuxuu noqonayaa ama dawada waxay noqonaysaa waxaa looga badbaadi karaa qofka muuminka horta inuu cilmi raasikha u yeesho xaqiiqadeeda waxa ay tahay aanu ku kadsoomin in iyadii la liido waxba aanan laga soo qaadin wuxuu leeyahay abu isxaaq fii masaa'ilihi hadaladiis waxaa ka mid xasan albasri inuu yidhi ahiinu dunyaa fawallaahi laahna'a maa takuunu cindama tuhaan adduunyada liida way liidmaysaa oo waxay noqonaysaa wax dhulka ku dheggan marka la liido marka la qaadqaado la buunbuuniyo unbay macno yeelanaysaa buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi abu isxaaq baa wuxuu yidhi maa ahwana dunya cala allaahi arrinka labaad wuxuu yahay inuu qofka ku fakero inay waxaanu aanay raagayn wax tagay inay yihiin yacni waad arkaysa ashkhaasta ka hor fadhida ninka maanta aad aragtay berri kuwa muuqanayo adduunya tegaysa wey yacni camalkii shalay aad qaban jirtay ma raagayo waxaa soconaya un keliya aladii qadamtahu lilahi jala wacala ilahay isagaa ku tilmaamay inay tahay sariicatu الdubuul wa shikata taqulus markiiba inay baaba'ayso kamahali gayثin acjaba alkufaara nabaatuh ثuma yahiiju fataraahu musfara markiiba iyadoo cowlanto isbadasho jaallo noqoto oo jajabtay noqonaysa watan allah subxana wa tacala yidhi isaga yidhi kaan lam taqni bilams mar haddii sidaa ay tahay waa inaan iyada darteeda nin muslima walaalka aadan u goyn iyada darteed waa adiga iyo islaantaada inaan laydin kala qabanin oo intay shilinka u dirtay anna intaan u dira waa inaan noqon iyada darteed waa in aanay khayraadka aan wadna aanay u burburin iyada darteed waa in wax alla wixii mashaariic khayriya aan wadno aanay u burburin iyada darteed maxaa yeele mar waxaa kan waa wax zuulaya wey wax joogaya markaa maaha camalka ku anfacayana biidni illahi subxaanaه wa tacaala huwa aladii qadamtahu lilahi jala wacala soo shala ma ahayn mu'tamar walbaba ilaa uu ka kii 18 baa la marayaa 18 sano idin hor fadhiyey raxmatullah caleyh sheekh maxamed rashaad oo kelmad meeshan uu ka lahaa maantana waa tan mu'tamarka maasha aanu fadhin waxay ahayd ma aha wuxuu la dhintay da' ma ahayn laakiin waxay ahayd cumrigiisa marka la gaaray wahaakada dawaaleyka laga yaabo sanadka dambe inaan meeshan ay ku soo wada noqon iyadooba wax marka farakuturis ay yihiin wax gaaban ay yihiin waxay u badan tahay marka ama waxaa khayrku uu ku jiraa ama arrinku sida uu yahaba in aynan isisiin iyada darteedna aan la isku goynin cilaajku wuxuu noqonayaa biidni illahi subxaana wa tacaala macna sidaas oo kale
وحليه وكم مثالي ابن القيم سيدين ريميغا أو أمرتي ضد markay marti sooreen oo cunto siiyeen oo raashin siiyeen oo biyo siiyeen oo yirba geedka hoos harso geedka markuu hoos harsaday oo teenda u dhigeen teendada marka ay ka dhufsay isagoo hurda kadibna uu soo toosay isagoo meel qarax marka joogay kadib marka cala lisaani xaalay tixgabay ku dhuftay wuxuu yiri wa in imru'un dunyahu akbaru hammihi la mustamsikun minha bihabli ghururi hadiiba adduunyada aad akbaru hammik aad ka dhigtay waxa ugu weyn aad ka fakaraysid waxaad ku dhigantaa xarig meel khaldan baad ku dhigantahay ciidaad gacanta ku haysaawo dawada kale waxay noqonaysaa lagu daweyn karo biidni Ilaahi subhanahu wa ta'ala in yar in lagu qanco in yar marka lagu qanco dawa imanaysa biidni Ilaahi subhanahu wa ta'ala inaan isbarno afarku markayna soo gashay inaan ugu filanta oo shil xaraam inaan raadin maxay yeelay waan soo noolaan jirnay waxa lagu soo noolaa la soo deganaa cariish baa la deganaa matarku baa la deganaa guri jiingada la deganaa waxa la deganaa qaar baa mudul deganaa kuwa ma aragtay aqal Soomaali deganaa nool meel bay deganaa يعني انت waa nagu filan laakiin meeshan markuu qofku uu yimid isagoo laba qol saddex qol degan buu wuxuu leeyahay guriga yar shalay waa lugeyn jirtay ilaa iyo waxa lugeyn jirtay meel dhow ilaa shaarka qaajar ka soo gaarto maanta adoo isugu ka toosan tahay ba waxa leedahay adduunyo iga maqan shalay adoo waxba aadan heli karin oo aad ku nooleed uu kaliya ninka biibitada ka soo hor fariisay shaha uu ku shubo ayo maanta ijaabkaaga uu buuxo akaankaaga uu buuxo viisaaga uu buuxo ayaa wali adduunyada si raadinaysa waxaad fahmaysaa marka كلما قفك حديث رسولك صلى الله عليه وسلم أن كسو ختم الدوان وعيه بإذن الله كلما قفك ودرهم وزياسة زاد هون وتلير أرنك لو وعيه تدبر إن أوقفك وكو مشغوله وحل قمك عابو لذة الله جل وعلا يعني لذة محبة الله جل وعلا إن أوقفك ودن صده عبادة معناها إلا ذا محايل العبادة وحل يقول قلبك وجوارح ويقول جوارح ذا وحبناها بني آدم كا ولذلك ننكي لأركي إساق تكنية كدمنا دقاجينا قرك ميلها تابانا مرنا مركا بنمضى حرانا مركا الأركي قلوسي حرانا مركا الأركي وأتلي أن من هذا لو خشعت جوارحه لخشع قلبه حبنيه أما لو خشع قلبه لخشع جوارحه بالعكس هدي قلبي يسوء خشوعي لها حبنيه سنة خشوعي لها إذن أركا مركا وحموجينا مسألة حب الدنيا ولا صافر رسالة ماشي marka نهاية الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى وحن كسو جبجبين لها وان كتجي قضبضها صدام وحن كسو جبجبين لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تلمامي مظاهر تمركو كهلي ومفاسد انت أن لقاها اللي انكهر بوحي رسولك صلى الله عليه وسلم أو تلمامي إن خير رنب وكجره قفك إنه وهرمر يا آخر ذي سأكدق بريورتي أوسيو شر رنب وحي كجرتا إنه مركا وهرمر يو الدنيا وانا دبك إلى هذا ولا رسولك صلى الله عليه وسلم حديث عكيري لو كان لابن آدم واديان لبا وادي هدو هي صلها او دهب مركا كجرب رسولك صلى الله عليه وسلم وحو رجين لها ما وجعل لها مسدحات انه هلو مسدحات بو رادين لها مركا رسولك صلى الله عليه وسلم لا يملا جوف ابن آدم الا التراب قفك بن آدم كا لابتي سوحا بوحيا كليه عيد مويان وحكى مركا بوحيا مركا مالها احاديث صدام waxay muujinayaan waxa qanaacada qofka ma qancaya illa aniga adiga iilka la naga dhigan mooyaan inta ka horeysa Soomaha inta raadin karna raadinina bil ismi hal lagu raadiyo magac qoray hal lagu raadiyo wax kale hal lagu raadiyo suuma marka loo raadiyo warka rasuulka sallallahu alayhi wasallam laba ruuxna laba shay wixii rasuulka sallallahu alayhi wasallam qofka daada ah يعني قفك وكو جبواب رسولك صلى الله عليه وسلم هرم بكون نقضى حب الدنيا حديث صحيح مسلم مركة المامة وإلى هنا وبالله التوفيق